kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idil ahaantiinba meel walba aad daafaha dunida naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii aan idiin soo gudbin jiray faaqidaada toddobaadka aad ka daawataan Oromia Media Network si toos ah daawadayaal barnaamijka maanta aanu qodobada aanu barnaamijkeena maanta aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah barnaamijka maanta aan qodobada aan barnaamijkeena ku falanqeynayno waxaa ka mid ah xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo weerar shalay ay qaadeen ciidamada liyu booliska ee ku laayeen dad Oromo oo birmageedi ah iyo xaaladda guud ee deegaanka iyo xaaladda Ethiopia ee arrimihii ugu dambeeyay ama xaaladihii ugu dambeeyay halka ay marayaan ayaanu maanta barnaamijkeena ku falanqeynaynaa barnaamijkeena maantana waxaa nagala qayb galay Dr. Yusuf Noor oo degan dalka Ingiriiska Dr. Yusuf waa aqoonyahan Oromo ah ahana caalim ah oo ka soo baxay jaamacadda ku taalo dalka Saudi Arabia ee Madinatul Munawwara PhD oo haysto oo iminka degan dalka Ingiriiska wuxuuna ka mid yahay culamaa u diinka ee dalada culamaa u diinka ee Oromada sidoo kale barnaamijkeena maanta waxaa nagala qayb qaadanaya Garaad Ahmed Garaad Qumbi oo degan dalka Australia Garaad Ahmed wuxuu yahay waa aqoonyahan ahna ugaaska guud ee Oromada ayaa maanta barnaamijkeena nagala qayb qaadanaya barnaamijkeena maanta waxaan doonayaa inaanu aan wacyigelin ama baaq nabadeed aan u jeedino qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Soomaalida muddo badan ee dagaal ama dhibaatooyin aan ka dhex taagan ayay maanta culamaa u diinka iyo odayaasha dhaqanka ee Oromada waxay doonayaan inay arrimahaasi maanta dadweynahana dhageysanaya iyo bulshada ay doonayaan inay kala hadlaan si ay walaaltinimadoodii iyo midnimadoodii loo adkeyn lahaa haddaba su-aashii ugu horeysay intaan su-aashii ugu horeysay aan gudagelin barnaamijka waxaa idin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah Daahir Mudiir dhanka farsamadana waxaa naga caawinaya Mahdi daawadayaasheena aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan si mar kale aan mahad u celinayaa martidayda aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sida quruxda badan inooga aqbasheen kasoo qaybgalka barnaamijka kusoo dhawaada labadiinaba Oromia Media Network waan dhownahay barakallahu fiikum daawadayaal iyo saaxiibayaal iminka barnaamijkeena ayaanu gudagalaynaa bal su-aashii ugu horreysay waxaan jeclahay inaan siiyo Dr. Yusuf sida aanu wada ognahay toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee magaalada Jigjiga faragelin ee ku sameysay dowladda federaalka Ethiopia ayaa waxaa ka dhacday halkaasi khasaare naf iyo maal ah dad badan ayaa ku dhintay biliqana way ka dhacday dad fara badan way ka qaxeen dad arintaasi dad fara badan ayaa waxay u arkaan aragti kala duwan in dowladda federaalka qaab sharciysan ay ku gashay mise qaab qaldan ay ku gashay bal arintaasi anagoona gudagalin dadka qaarkood waxay u arkaan leeyihiin baraha bulshada duulaan qaawan ee Oromada nagu soo qaadeen arintaasi dadka sidaas Oromada ku dhaliilaya ama ka ashtakoonaya weerarkaas ama faragelintaasi yaa ku qaaday ma Oromada ku qaaday mise dowladda federaalka dadka arrimahaas aaminsan maxaad uga dhaadhicisiinaysaa maxaad u sheegaysaa bismillahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay horta waxaa la yiraahdaa hal diidangeed ay ku xooqato ma weydo runtii ciidamadaas wax badan bay fursad siiyeen nidaamkii hore oo Cabdi Ile inuu cadaadiska iyo isticmaarka iyo dhibka iyo xabsiga iyo dilka ummadda uu ku hayo inuu ka joojiyo isbedelkan weyn oo dimuqraadiga oo wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa Ethiopia oo dhan ka urto ka dhashana inuu la qabsado fursado fara badan baa la siiyey fursadihii oo dhan way shaqeysmi waayeen markii dambe arintu waxay noqotay inuu ficilo waaweyn oo adag oo wadanka burburintiisa xagga u socday inuu ku dhaqaaqo marka dawladdu waxaa qasab ku ah marka qaanuunku inay fuliso midnimada wadankan ay ilaaliso ciidan qaran ayaa la keenay ciidanku waa ciidan Ethiopian ah magaalada ay yimaadeen oo magaalo Ethiopian ah duulaa waxaa la yiraahdaa markuu ciidanku wadankiisa ka baxo wadan kale aado ciidan wadankiisa jooga oo fallagoobo wadankiisa ka mid ah degmo ka mid ah ama gobol ka mid ah fallagoobay hadduu ciidankii maxaa la yiraahdaa nabadii uu soo celiyo ninkiina uu cadaaladda geeyo
lama yiraahdo haba yaraatee duulaan magacaas duulaan ba lama yiraahdo waa ciidanka wixii loo sameeyaa taas ah marka runtii waxaa laakiin foolxumo ah qof isagu dibadda jooga aan Ethiopia ba ahayn dhacda degmo kamid ah ama magaalo kamid ah Ethiopia wixii ka dhacay inuu isagu ka hadlo ka tadakhulo maxaa la yiraahdaa faragashado ayaa ka sii dhib badan ciidanku magaaladiisii ehelkiisii dadkiisii hadduu u yimaado qofkii wax xiri lahaa qofkii wax dhaci lahaa qofkii wax dhibi lahaa inuu dadka ka qabto waa wax aad u weyn maxaan ku iraahdaa wanaagsan ama in la yiraahdo ciidankaas qaranka oo qabiil walba 80 iyo dhowrka qabiil oo Ethiopia ay qoomiyadooda Ethiopia ay ka kooban tahay buu ciidanku ka wada kooban yahay ciidanku hal qabiil ma aha waa ciidan wadaneed waaye ciidankaas in loo fasiro marka Oromaan ugu duushay isagu hadalkaas waxaan u arkaa hadal uun yani lagwi ah runtii oo haba yaraatee aan macnaba lahayn Oromia kiril bay leeyihiin maamul bay leeyihiin booliis bay leeyihiin booliiskood ma imaanin maamulkood ma imaanin qeyro bay leeyihiin nimankii waddanka xoreeya ah nimankaas ma imaanin intaas oo dhanba hadaynan imaanin ciidan federaal oo diyaaradihiisii iyo taangiyaashiisii wixiisii kusoo degay in la yiraahdo Oromaan ugu soo duushay waxaan u maleynayaa hadda inay maxaa la yiraahdaa hadal aan meeshiisaba ahayn inuu yahay hadal markii qof uun sun qof tuuray unbaa in kaloo iyagana waxba aan kala garanaynin suntii intay qaateen bay sii fidiyeen marka waxaan u arkaa runtii ciidanku ciidan federaal inuu yahay ciidan Oromo inuusan ahayn Soomaalidu ay ku jirto qoomiyad walba ay ku jiraan hawl qaraneedna ay qabteen qofna aan duulaan ku ahayn qofna aan dhibaato gaarsiinaynin bal qof walba inay ilaaliyaan qofkii gurigii la gubaa gurigii la dhacay maxaa la yiraahdaa macbadkii ama manisadii ama masaajidkii la gubi lahaa ama la gubay inay ilaaliyaan ayaa shaqadoodu ahayd tiinaba inbay qabteen haddana waddankii alxamdulillah waa sugeen intay iyagu maqnaaneen 3 maalmood ama 2 maalmood oo iyagu ay imaaninna waddanku gobolka oo dhan baaba khatar gaare markay qabsadeen arrintaas bil xaqiiqa si sahlan oo ma sha Allah bay oo professional ku jirto shaqadoodii ay intaas oo san loo tababaray ah bay fushadeen wanaag fara badan waa ka muuqda iyagoo qofna dhibaato gaarsiinin bay meelaha maxaa la yiraahdaa loo diro dhanba ay joogaan marka in dhinac kale loo fasirana waa qof iska hadlay Garaad Ahmed waad maqlaysaa Sheikh Dr. Yusuf sida uu dhigay runtii Dr. Yusuf waa culamaa diinka ugu waaweyn ee Oromada ayuu ka mid yahay dad fara badan ayaa dhageysta oo bulshada ayuu madax u yahay arrintaasna halkaas wuxuu ka cadeeyay inay Oromadu arrintaasi lagu wasafiyay inay bari ay ka yihiin arrintaasi ay tahay been abuur hadal aan sax ahayn hadal aan munaasab ahayn in qabiil lagu tilmaamo dawladda ee faragelinta ku sameysay adiguna waxaa tahay ugaaska reerka ayaa tahay garaadka Oromada ayaa tahay arrintaasi sideed u aragtaa su'aashii aan weydiiyay waad maqlaysay Oromadu ma duulaan bay ku ahaayeen inay jigjiga ama deegaanka Soomaalida miyay u socdeen arrintaasi dadka ku dhageysanaya ama dadka arrimahaas aaminsan maxaad ku oran lahayd oo ka dhaadhicin lahayd ama ku qancin lahayd بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka horeyso waxaan salaamayaa wahdan media network iyo ummadda i dhegeysanaysa meel walbo inta adduunka joogaan iyaanu salaam u gudbinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام وحوي مدح ميل كسر يلا لما صلاحه نبي نكوينا ما أدري قال لي كل وكاد للشيخ جزاك الله وحيا إلى يابا وحلو قصلا روما هذه الدبابات كا ديارتها يعيدا كان تابع لها وحلا ياب لو وحلو قصلا ودنكو دولة قرنا وفعوين ودأوين وهراوين يا وطن كاتلس رومو وقومية شعب ودكن مرك كوات مامل قار اي لهذا وعيدا وقار ومامل قبلات بوليس باي لهذا
إذا ما بلاد بين هاي شعب إذا ما بلاد بين هاي مدنا معها وحا مش تجي إلا ما لنتي إبكو بالعوضي إلا ما لنتا ما أنت اللي تشوفه إسكري بوليسا وكل الكام حارد الله قحكمه حدود ماشي شلي اللون دقاي انتو كقد بي قف صومالي وحميين وكتان ناسي وايتان وماما دي شبيلو الماقي جيل بالا يمركي اللي يدي وللميكا جيل مدي لنا قرا الله يسي قرا الماي جيل الله يسي يميل عن كعر قدن كرين يدر أري بالا ييل ماي مركا وري صورتا أن أشرحنا روما وحيد ومدى أن أقول روما وحيد روما سيدا أي كفتن كي يفدي كتورة نقول يدادا نقول عياما تتلعسن يو أركان مايا وددنا بطيطان ودد ودن نولان شهد ودد حير ودد نقل وددك وأمد دليتان كقف بلو آدمية إلا قاتلو ونفت اللي قويو حق اللي حق بلو آدمي منا نكو آغاد سنين ودد آتو الصبر بطن ودد تأوين ودد لغو حساب لغو قياس كرا ومدد تجي انت اي صبر يان كبدن صبر ودد وقددتك ودد الصبرتك انت حنبار سينا يجي دوشو دا كنول جيسك افريكا حتى الدولة دا كما دحنول مريكان دا تكوين باعيا وانا عيب اقرحان عرمو إني درس حماسو عصري ماذا الله رقع عاي نقط حلي كمان تيني تشوفني بل حتى بقى السوق قادني أمبي واحد عديسي أرنتي سؤاشي شيخ أويدي أما كويديي واحد عديسي واحد كويديسي واحد تري أرنتاسي diyaaradaha iyo dabaabaadka iyo taangiyaasha iyo hubabka waaweyn oromadu ma laha ciidamada federaalka waad cadeysay mowqifka sheekh ayaad qaadatay barnaamijka kalena waxaad cadeysay oromadu waxay tahay in sida waad sharaxday waan u imaan doonaa waxaan u gudbaynaa sheekh yuusuf dr yuusuf kadib markay ciidamada halkaas magaaladaas ay yimaadeen waxaa ka dhacday biliqo waxaa ka dhacday sidii aan horaan aad ka dhawaajisay meelo fara badan la gubay dad fara badan aan Soomaali ahayn oo magaalada degan oo amxaaradii tigreydii oromadii uraadii qof qabiil kasta degan ayaa waxyeelo loo gaarsiiyay dad fara badanna way ka qaxeen arintaasi runtii dad Soomaali ah shacabka Soomaalidu arintaasi bari bay ka yihiin sida annaga wararka aan ku maqalay bari bay ku yihiin aan ku maqalay ma aaminsanahay laakiin arintaasi waxa la sheegayaa inay geysteen dad qorsheysan u gaarka ahaa taliskii meesha ay ka talinayeen shacabkii kale guryahooda ay ku ekaayeen arrimahaasi kama qayb qaadanin nabad ay gurigooda ay ku joogeen bal dadka faraha bulshada ummadda isku dirayo oromadii waxay doonaysaa dhulkiina ay qaadanaysaa Soomaalidu waxay doonaysaa oromo dhulkaada ay qaadanaysaa labada dhinac oromada propagandada wadda iyo Soomaalida propagandada wadda labadaba maxaad aad wacyigelin aad u jeedinaysaa waxaa leeyahay runtii dhibaatadii ka dhacday jigjiga kama dhacin weligeed Ethiopia nidaamku hadduu ka duwan xataa Ethiopia bililqa ma yaqaanaan bal xooladoodu inay qaataan shacabka Ethiopia oo dhan ma yaqaanaan kuwooda Soomaalida iyo kuwooda Oromada iyo kuwooda Axmaarada iyo qabiil walbaba qof Ethiopian ah bililqa lagama yaqaano waa dhaqan Ethiopian ahayn marka ummadda shacabka Soomaalida Ethiopiana bari bay ka yihiin arintaas dhaqankoodana ma aha bil xaqiiqa
in ummaddii la nooleed oo wada deganaayeen dukaamadoodii iyo guryahoodii inay dhacaan oo alaab yaryar iyo maacuun iyo ka qaataan abadan sharaftoodii ma aha bari bayna ka yihiin arrintaa waxaa sameeyey systemkan qaylada ah dadka abaabulay dadkan sufahaada aan waxba garanaynin oo internetka iyo ka qayliya abaabulkaas systemkaas unbaa bililqadana keenay waa hal system oo isku xiran kuwa wax bililiqaystay unbaa ah kuwa internetka bililiqaystay kuwa internet ay fadhiyaan oo bililiqaysteen kuwan guryadooda bay bililiqaysteen maacuuntii iyo saxamadii iyo qaadooyinkii bay qaateen waa isku mid waa un maxaa la yidhahdaa waa tiim la sameeyey murtaziqa ah oo caloosho shaqaystayaal ah oo waliba kuwa yaryar da yaryar ah qof weyn waa fikira caqligiisa waa shaqaynaya laakiin qofka yar wax ma fikiro xadiis baa jira imaam al-bukhari warina rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warina oo rasuulku yiri ya'ti fi aakhiri zamani qawmun xudathaa'u al-asnaan sufahaa'u al-ahlaam buu yiri aakhiri zaman waxaad arki doontaan buu yiri dad da'doodu yar tahay caqligooduna aad u liita laakiin shu'uunaha ummadda ku maqan qof internet aad u malaynayso maxaa la yidhaahdaa saxafi aad u malaynayso ama wasiir aad u malaynayso intuu gurigiisa fariistay sheeko bilaabaa waa sufahaa'u al-ahlaam xudathaa'u al-asnaan waaye da'dooda markaad fiirisid inta ugu badan da'doodu waa yar tahay ama waa weynaadeen mooyo caqligooda yar waliba da'da yar bay isku dhiibeen marka caqligooduna waa yar yahay lamaba dhegaysan karo waxaad dhegaysan karta xataa ma aha ummaddaas markuu ka sheekeynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fa aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum buu yidhi mar alla meeshaad ku aragtaan nimankaas ummadda ka fogeeya buu yidhi ila iska qabto kuwaas ayay maslaxaddu ku jirtaa bilxaqiiqa sababtoo ah sun bay daadinayaan sunta marka in iyagoon ogeyn ku dhacda iyo in iyaguba caqligoodu liito maxaa la yidhahdaa suntu ay ku qanacata unbay dadku noqonayaan suntaas kuwaa daadinaya waa kuwa runtii hadal khatar ah waxaan qof walba marka halkan kaga degayaa bilxaqiiqa ikhwaani qof walba adduunyada waa laga guuraya waa la dhimanaya qof walba wixii aad samaysay wixii aad ku qowshay unbaad aakhira lahu imaan doontaa qabrigaagaad geli mar alla markaad qabriga gashidna xisbigeed ka tirsan tahay iyo qabiilkeed tahay iyo qowmiyadeed ka soo jeedaa iyo laguma weydinaa maxaa samayse keliya lagu weydinaa qowlkaas aad ku qowshay ummadda aad isku dirtay beentaas aad fidisay sun ummad dhex gelisay wax kastoo ka yimaada natiijadeeda adaa qaadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof walboo qof dila qayb waxaa ku leh buu yidhi wiilkii nebi aadamu qofkii ugu horreey dilay sababtoo diliddii buu jideeyey qofkaas adigana saas waa hadalkaagii wax kastoo ka yimaada amaama allahi baad qaadan doontaa ugu wallahi maalintaas inuusan qabiil iyo tol iyo qowmiyad toona aan ku helinaynin labada dhinacba ani way isiman yihiin kuwa xagga ormada ka qaylina iyo kuwa xagga soomaalida labadu way isiman yihiin labaduba waa ajensi waa murtaziqa ummad bay rabaan ummaddii weligood wax walba wadaagta ummaddan wax walbay wadaagaan bay waxay rabaan inay sun dhex dhigaan maxay ka faa'iidaysanayaan waa ajensi waa lagu shaqaysanayaa marka nimankaas waxaan leeyahay ummaddu ha iska qabato hana ogaato iyaguna ha ka waantoobaan ma ka baxay marka waxaa leeyahay bilxaqiiqa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkan qofka dadka aad rabto inaad mas'uulta inaad hadal taqaano oo maxaa la yidhaahdaa dad fara badan aad ku yeelato oo leeg fara badan lagu saaro maxaa la yidhaahdaa view fara badan aad ku heshid waxaa ka weyn aakhiradaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waylu liladii yuxaddithu liyudxika bihi alqowm qof inuu dadka ka qosliyo ama view fara badan inuu helo keliya been u sheega wayl baa u sugan buu yidhi waadi oo fi jahannam ah baa loo diyaariye buu yidhi waylun lahu buu rasuulka calayhi salatu wasalam ku celceliyey marka view yaroo meelahan aad ka heshay inaad naar ku bedelatid waa dhib aad u weyn ikhwaani aakhiradeenna aan badbaadsanno
ilaahigeenana aan ka baqno afkeennana aan kontroollo carabkeenna aan ka adkaano ummaddii weyneedna haska qabato ummaddaas oo kale baraka allahu fiikum daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idil ahaantiinba waxaad nala socotaan aad naga daawanaysaan Oromia Media Network barnaamijka maanta aanu ka hadlaynana xaaladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee ka dhacday toddobaadkii la soo dhaafay ayaa maanta barnaamijkaasi waxaa marti noogu ahaa laba qof oo